haddii uu maqalkayga ku soo gaaray dhagayso waa qiso cibro qaadasho kuugu filan. nin dhallinyaro ah ayaa waxa uu yimid aaska saaxiibkii, kadibna isagii oo kor taagan qabriga saaxiibkii ayaa waxaa su'aal weydiiyey nin shiikh ah oo ay isgaranayeen. su'aashinu waxa ay ahayd, haddii saaxiibka uu allah subxaanahu wa tacaala dib u soo nooleeyo maxay kula tahay in uu samayn lahaa? kadibna ninkii dhallinyarada ahaa waxa uu ugu jawaabay, waxa ay ila tahay waxa uu isku dayi lahaa in uu soo qaleeyo salaadihii uu ka tegi jiray, waxa uu isku dayi lahaa inuu dib u barto qur-aankii la baray ee uu dayacay, waxa uu isku dayi lahaa in uu soo qaleeyo wixii soon ahaa ee lagu lahaa cudurdaar la'aantan ugu tagay, waxa uu isku dayi lahaa inuu hagaajiyo xidhiidhka ka dhexeeya isaga iyo rabbigii. intaa kadib ninkii shiikha ahaa waxa uu ku yidhi wiilkii dhallinyarada ahaa, waxa ay ila tahay wanaagga aad soo sheegtay dhammaan adiga ayaa fursad u haysta in aad samayso, waayo saaxiibkaa marnaba ma soo laabanayo si uu u hagaajiyo wixii uu ka tegey, balse maanta adigaa haysta jaanis aad ku samayn karto gunaanadka wanaagsan ee haddaba isku day in aad adigu hagaajisato xidhiidhka adiga iyo rabbigaa idinka dhexeeya ee ah in aad samayso wixii uu ku faray. haddii ay maanta noqoto maalinta ugu dambaysa ee aad ka tegi lahayd gurigaaga kumeelgaarka ah ee adduunyo oo aad u guuri lahayd gurigaaga dhabtaa ee qabriga, maxaad u sii diyaarsatay? bal isweydii maxaad u sii diyaarsatay? waxaan isleeyahay waa su'aal wax badan ka beddeli karta qofka iyo sida uu nolosha u arko. ugu dambayntii waxaan allah subxaanahu wa tacaala ka magangalaynaa in aysan geeridu noogu imaan si lama filaan ah iyadoo aysan hagaagsanayn xidhiidhka anaga iyo allah subxaanahu wa tacaala inaga dhexeeya. aamiin 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 yaa allah. walaal sii sheergelay qisadan si ay walaalaha muslimiinta ugu noqoto qiso cibro qaadasho ugu filan. wabilaahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.